kulankani oo sanadkii mar lagu qabto deegaanka ay Soomaalidu u badan tahay Biyaalbale magaalada Cape Town ayaa markan u muuqday mid ka duwan kuwii hore waxaana aad loogu lafa guray sidii Soomaalidu Koonfur Afrika ay ugu bixi lahayd dhibaatada iyo sidii loo wanaajin lahaa magaca midnimada Soomaalida Koonfur Afrika. kulankan ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ayaa soo qaban qaabiyay hay'adda culimada Soomaaliyeed ee South Africa ee Albayaan ee sanadkan xoog lagu saaray sidii dib loogu celin lahaa magac wanaagga Soomaalida Koonfur Afrika waxaana dadkii ka soo qayb galay siyaabo kala duwan oo waxtar leh ugu dhiibteen fikradahooda kuwaasi oo ahaa qaab qoraal ah waxaana qadka telefoonka kaga qayb qaatay Dr. Axmed Imaam oo ku sugnaa caasimada Soomaaliya ee Muqdisho iyo Dr. Cali Maxamed Saalax oo isaguna ku sugnaa magaalada Oslo cariga Norway waxaana labadaba ay ku dheeraadeen sidii loo samata bixin lahaa Soomaaliya iyo Soomaalidaba iyadoo la kaashanayo ku dhaqanka kutubka le kulan kadib ayaa TV caalamiga Universal la hadlay Sheekh Mahjuddin Maxamed Sheekh Xuseen oo ka warbixiyay ujeedada kulanka. ujeedada laga lahaa kulankan waxay ahayd in maxaa la yiraahdaa lagu wacyi geliyo sarana loogu qaado aqoonta iyo horumarinta bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan South Africa guud ahaan gaar ahaan magaaladan Cape Town iyo in xal loo helo waxyaabaha mashaakilaadka ah ee ka hor yimaada soo wajaha bulshada dadka waxgaradka ee meeshan la isugu keenay arrintaas iyada ah laga siiyo niqaash. ujeedada kulanka waxay ahayd kulan loogu talagalay in kor loogu qaado horumarna loogu sameeyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ducaada iyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee gobolka Western Cape magaalada Cape Town. kulankan waa kulan dhaca sanadkiiba mar waxyaabo fara badan oo bulshada soo wajaha ayaana looga hadlaa. si kastaba ha ahaatee kulankani oo ahaa mid sanadlaha ayaa aad lagu falanqeeyay sidii loo wacyigelin lahaa Soomaalida Koonfur Afrika iyadoo la ogyahay Soomaalida Koonfur Afrika markay dalkan ay soo galaan aysan helin wax wacyigelin ah ku saabsan dhanka sharciyada dawladda Koonfur Afrika iyo sidii ay ugu noolaan lahaayeen dalkan ay u soo carareen. Maxamed Deeq Muuse Nuur, Deeq Darajo, Universal TV, South Africa.